السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلاميا أدونك ميل والبو aad ka joogtaan. Aniga waa Hudaniyo Eedan, hooyo, xaas, qof ganacsate ah, qof jecel waxbarashada, wax akhriska, qof jecel baraarujinta hooyooyinka kale, siiba wixii qoseeyo familiga iyo qoyska iyo ilmaha, iyo qof jecel horumar inuu qof kale gaaro, inuu qof kale wax qabsado, in uu qof kale uu farxad ku noolaado. Okay, so barasho wanaagsan, kusoo dhawaada janaalkeena Kasmaal barbaarinta ilmaha. Waxaan leenahay Facebook iyo group, lacala haddii aadan dhinacaas ka soconin, kusoo dhawaaw, naga raadi Facebooka, like iyo follow noo saar. Haddii aad tahay hooyo ama gabar yar oo beri ka maalin mustaqbal yeelanayso, ilmo dhalayso, hooyooyinka kale ka baro xirfada ilmo koriska, ilmo barbaarinta iyo waxyaalo badan oo xasaasi ah oo laga sheegi karin publica, lagu soo qori karin, oo groupkeena u khaas ah. Maasha Allah, hadda waan soo badanay, si fiican oo groupka la isku caawiyaa, wax la iskugu sheegaa, alxamdulillah. Today's topic, maanta topic aan ugu soo talagalay waxaa weeye weight loss. Sideeba baruurta la iskaga ridaa, sideeba jirka loo dhistaa. Maanta marka waxaan jeclaaday inaan ugu faa'iideeyo gabdhaha groupka iga soo codsaday, sida aniga nafteyda aan ugu ilaaliyo baruur badan inay korto, yacni inuu culays badan jirkeyga koro. Marka haddii aad groupka cusub tahay, haddii aad Facebook ku cusub tahay ama YouTube-ka naga soo aragtay, insha Allah subscribe iyo like saar, comment ka bixi, soona dhawaaw insha Allah. Gabdhaha groupka ayaan dhexdaas waxaa dhacday gabadhan saaxiibanahay, aadna aan u jeclahay, Facebook aan isku baranay, weligeena aan kulmin, laakiin aan dareemayo yacni qof weligeed is yaqaaneen camal aan dareemayo, ayaa challenge igu soo sameysay. Marka challenge ayaan hore socday, kadib markii madaxweynaha Mareykanka uu dhacayay, waxaa la reeb dad badan isku soo xirmay oo isdhahay negative badana ka socotay social mediaha aan ma arkino wax positive aan ka sameyno social mediaha. Marka gabdho badan oo ku jira social media waxay sameynayeen saaxiibadooday tag dhahayeen, ma fahanteen challenge-gaas. Marka challenge-gu wuxuu ahaa sawirkaaga soo dhig, black and white ka soo dhig, saaxiibadaadana tag soo dheh, ayagana ma arkino soo challenge garay in ay يعني aan support gareyno gabdhaha hadaan nahay, waad qurux badan tahay, waa gabar fiican tahay, comment aan iskaga tagno oo challenge ah, ma fahantay. يعني gabdhaha oo ma arkino oo support gareynay dhexdooda, oo jaceyl iyo taageeranimo yani muujinay dhexdooda, sida ma arkino news loogu mashquulno, anaga dhexdan iskugu mashquulno challenge iska aha. Gabdho badan oo saaxiibad nahayna taaga anigana saaray. Aniga marka sawirada ma ku fiicni badana, sawiro badan ma soo dhigi Facebooka, kastoo live-kayga ma arkino private aan jeclahay, kastoo ilmahayga iyo qoyska iyo waxaas dhan ma soo dhiga badana, laakiin sometimes saaxiibadeedii iyo familada si ay ila socdaan sawiraan soo dhigaa. So anyways, sawirka challenge-ga ahaa aan soo dhigay, waxaa ka dhashtay maxaa la dhahaye, waxaa ka dhashtay in gabdho badan, siiba gabdhaha groupkeena ku jiro, groupka hadda wuxuu marayaa 9,000 oo qof camal, ma fahanteen. Marka wuu koray maasha Allah, marka waa inaan sii kornaa insha Allah. Marka gabdhihii waxay sameeyeen luuqay soo wada galeen kulligood, badana kulligood ma ahan, waxay dhaheen Hudaniyo miya haa see camal adigoo ma arkino 4 caruur haysatid, see jirkaaga ugu egyahay adigoo caruur dhalin camal. Marka waxaan gabar kasta u sheegayay waxaasaan cunaa, exercise-kaasaan sameeyaa. Marka waxaa ii suurta geli weysay inaa hal qof marba qof ugu sheegon dhaho saan baruurta iskaaga gooy, saan caloosha iskaaga jar. Marka macquul ma ahan qof businessna guriga ku dhex sameysaan ahay, oo dukaan yar online-ka ku leh, oo yacni insha Allah inaan koro oon wax badan soo saaro jecel. Hooyaan ahay, maanta dhan hoola isugeyso, Soomaaliya camal qof ciidan lama hel meeshaan deganahay, Mareykanka waaye.
marka waxaa ii suurtageli weysa inaan gabar walbo oo walaashii oon jeclahay inaan caawiyo inaan baraarujiyo maarkino waxaa ii suurtageli weysa inaan hal dadka ula hadloon dhaho waxaas subaxi cun duhurka waxaas cun exercisekaas sameey marka groupkan soo galo waxaan ku dhahay ka warama haddii aan cod soo duubo oo adinka dhan idin dhiirigeliyo oo adinka dhan idinla sheergareeyo waxaan sameeya saa ugu faa'iidaysatiin because muhiimadda waxaa waa inaan isku faa'iideyno ma fahanteen social media waxyaalo badan iskaga jiro marka faa'iido meesha oo maarkano faa'iido noogu jirto waqtigeena yarka inaan gelino waay moqt marka insha Allah waxaan rajeynayaa inaan idin faa'iideeyo oo waqti idin ka dhuminin barnaamijkan haddii oo adiga maarkano ku xiiseynayn waa iskaga si dhaqaaqi kartaa haddii xitaa waqti iskaga lumin insha Allah marka inta xiiseynaysa yani gabdhihii soo weydiiyeen inta xiiseynaysa inay maarkano say jirkooda u ilaalin lahaayeen insha Allah tips iyo techniques iyo waxaasan siinaa yani waxaan siinaa sidii aniga ii shaqeysa okay because bani aadamka waa isku wada mid jirka waa isku mid marka waxaa jira oo base ah oo maarkano geedka xididkiisa ah iyo waxaa jira caleemo marka badanaa jirka bani aadamka haddii hoos baseka xididka laga dhaqaaleeyo waxaa waaye caafimaad badan u hela waana isku wada mid ma fahanteen marka anigoo ilmo dhalay haddana jirkaygii kama muuqato baruur iyo maarkano isku dhexyaacid iyo waxaas sababtana maaha inay easy tahay oo kursi aan fariisto ma aragteen oo shaah aan soo qabsanayo marwal ma aha ma sahlano in jirkaaga maarkano marwalba laga shaqeeyo oo yani ma sahlano ma fahanteen oo la celceliyo inay baruur badan ku korin haddana ma adko in aad lifestyle caafimaad leh ku noolaatid haddana ma adko wax walba waa mindsetka ma fahantiin waa maskaxdeena sida u maamulno go-aanka aan sameyno saa iskula hadalno codka yaroo nagu dhex jiro ee ku xiran tahay ma fahantiin marka maanta waxaan idinkaga faa'iideynayaa sidii aniga oo maarkano 2 sano kadib hal cunugan dhali jiray sidii maarkano aan ugu soo noqday finally cunugay ugu yar hadda wuxuu jiraa bisha hadda dhalatay u dhamaatay 3 sano galay ma fahanteen marka 3 jir ayuu iigu yar 5 jira ku xigo ka sii weyn 7 jira ka sii weyn hal cunugna way iga dhintay jannada ilaahay isku intuso gabadha noogu weyn 9 jir waay ma fahanteen marka ani 4 aan dhalay okay 4 aan dhalay iska faham adinka 4 aan dhalay laakiin total ilmaha 5 waay marka alxamdulillah marka saas aan idinkaga sheekeynaa marka waxaan idinkaga sheekeynaa see marka jirkiina maarkino aad ugu caafimaad ugu muujin kartiin iyo ishayso insha Allah horta number 1 waa inaan ogaanaa haddii aan uur leenahay iyo haddii aan maarkino nuujinayno dadka kale waa ka duwannahay okay marka haddii gabar aad dhegeysanaysid aad uur leedahay ama maarkino naas siinaysid isku day inaa wax caafimaad la cuntid laakiin ha isku dayin inaa maarkino wax la ka muuqo isla markiiba wax ka dhacaan ma fahant waxa adduunka ugu xunaa leeyahay jir la caateeyo ama la yareeyo ama la jaro waxa ugu xunaa la dhahay qofkii dhakhsi is caateeyo ma fahant hada dhakhsi is caateysid oo 1 bil 2 bil intaas oo kiilo ka dhacdo maarkano culays ka dhaco maqaara ka soo haray okay adiga dhan waa jilcaysa marka si kasta ha ahaatee haddii aad rabtid inaad dhuubnaatid ama aad u dhalatay qof buuran ama aad rabtid inaad baruur iska celisid isku day inaadan dhaqso hal mar isa siin oo baruurta iska qaadan ma fahanti baruurta haddii hal mar laga bixiyo jirka aday dhan waa jilcaysa marka jilcadina way adagtahay inaad adkaatid because maqaarka ma aha sida baruurta camal ma aha fahmaya baruurta waa iska ridi karnaa laakiin maqaarka ma aha wax noqonaya meeshiisa ku noqonaya dhaqso oo adkaanaya ma aha ma fahantiin dadka qaar waa aragteen oo malana videoyaasha waa ka fiirsteen markii ay aadaan extreme weight loss iscaateys xoog badan oo zaa'id oo dhaqso markay sameeyaan waxaa ka soo haray maqaar ayakii urdi jiray ayagoo cunto fiican cuni jiray 2 bila loo qabana 3 bila qaarkood loo qabana hal mar isa siinayaan calool waxaa ka soo baxayso maqaar garbaha maqaara ka soo raaracmaayo dhuunti maqaara ka soo raaracmayso qaarkood waxay u baahanayaan in maarkino la qalo because maqaarka waxa lagu sameeyo ma lahan oo maanta urudid maanta access gareysid muruq waa yeelan laakiin maqaarka meeshiisu ku yaalaya ma fahantiin marka waxa arkaysaa gabdho badan oo yani dadka badan oo YouTube-yada ku jira waxay jecel yihiin inay dadku u faa'iideeyaan kulligood laakiin waxa ogaateen kulligood ma aha dad akhrisanaya ma fahanteen ama akhristay ama wixii oo saxda ah inay soo akhriyaan YouTube ka soo sameynayo qaar waxa arkaysaa gabdhihii ku waanayaan biyo kulul cab
qaar waxay dhahayaan shaah hebel la isku caateeyaa, qaar waxay leeyihiin suuna dhexda lagu xirtaa. waxyaalahaas dhan halisa ku jirtiin, ma fahanteen. haddaa shaaha isku caateysid waxaa waaye wixii dhaqsi kugu soo noqonaya. number one, shaahaas muxuu ka sameysan yahay ma ogid, adiga China lagu soo sameeyey. dhexda la xirinayo dhibaatooyinkay leedahay waxaa waaye organkii dhan dhexda ku jiray, keliyihii, beerkii, sanbabadii, wixii dhanaa markano damage-kaa gaari karaa, ma fahanteen. dhakhtaraan ani fiirsanayo oo gabar dhexda xirtay xanuuno badan kaga dhacay beerweynaha, beer yar iyo beerweyne kaliin, mogtahay. dhibaatada waxaa lasoo ogaaday marka gabadhaas waxay sameyn jirtay dhexday xiran jirtay, suumanka dhexda lagu xirto waaweyn ee dhexda dhab ku siisan jirtay. markaasaa calool ku jirkeeda dhinac isku tegi jira, marka damage ka gaara beerweynaha, ma fahanteen. marka dhakhtarka dadku tusaayo wuxuu dhahay iska ilaaliya waxyaalahan dhexda lagu xiranayo. haddii aad tahay hooyo uur leh, haddaad tahay hooyo nuujinayso, waxaas ha ku degdegin. haddaa gabar yar tahay xitaa waxaa jira siyaabooyin badan oo aad isku cateyn kartid, isku dhisi kartid. aniga markaan uur yeesho waad cayilaysaa, waadna ku qasban tahay. haddii aad uur yeelatid oo aadan cayilin, cunug caafimaad lehna ma noqon kartid. cunugaadan waxaa laga yaaba inuu caafimaad iyo baruur aysan korin cunuga aad dhalaysid, adigana waxaa laga yaabaa inaa aad iyo aad u xanuunsatid xitaa, ma fahantay. gabar waxaa arkay inta lagu dhahay cunugaa ma dhali kartid because waxaa jirkaagii maalinta uur yeelatay soo hilibka kaaga dhacaya adigiyaa naf marka 7 bilood markay gaartay sariiraa la seexiyey because cunugiyaa markino cunto gooni lagu xiraayo, tubooyin iyo maxaa la dhahaa cirbado iyo faleembooyin ku socdo. dhibaatada waxaa waaye qofka markuu uurka leeyahay waa inuu markino u cayilaa si cunugii dhiig badan jirka u sameeya, oo dhiigaas badan nutrition iyo waxaas oo u gaara dhiigiisa. cunugii baruur jirkaada kasoo baxda, vitamina kasoo baxaan, cunugii kugu dhex noolaadaa, ma fahante. wax noolaa lagu dhex noolaan karaa, ma fahanteen. laakiin wax sii dhimanaa laguma dhex noolaan karo. haddii lagu dhex noolaadana cunugaasi wax gaarayaan. marka waxaa waa lagu leeyahay muhiim waa inaa cayilno markaan uurka leenahay. muhiim waa xitaa markaan naaska nuujinay inaa cayilkeena inkastoo nagu sii jiro. laakiin Soomaali haddaan nahay waxaa aaminsanahay dhibka jiro waxaa waaye shaaha lagu leeyahay caana laga helaa, ma fahanteen. shaaha caana lagama helo. shaah haddii baaritaan ku sameysaan oo soo akhrisaan waxaa ku jira wax la dhaho kaafiyeyn. kaafiyeenkaas maxay nagu sameynaysaa? markuu qofka kaafiyeyn cabo ama qaxwo cabo ama shaah cabo, kaadiya ka keenta haddaadan ilmo nuujinaynin. waxaa lagu leeyahay dadka qaar shaah ma cabayo cawada kaadida inaan usoo kaco maraba habeenkii ee dadka dhahaya ma aragta ma maqlino. micnaheeda maxaa waaye marka kaafiyeyn jirkeena galo waxaa lagu leeyahay wayna qalajinaysaa, okay. wixii qoyaan nagu jiro iyo biyo nagu jira soo saaraysaa. marka maxaa dhacaya marka hooyo markay shaah cabto ama isku badiso naasiya caano ka imaanayaan. sababta ma ahan caanaha adiyaa batay, sababta waxaa waaye qoyaanka korkaa ku jiriyo rabaa kaafiyeynka inuu soo riixo. marka xitaa waa ku gurin karaa, xitaa caan laan kugu ridi karaa. marka waxaa lagu leeyahay cunugii 6 bilood jir caanihii iga guray because waxaa laga yaabaa inaadan biyo badan cabaynin. aad maanta dhan aaminsan tahay shaaha caana iga keena oo shaah isku wada adina ku cayishi meeshii, ma fahanta. cayilka kaasoo raacaya sokorta waa cayil fool xun. cayilka kaasoo raacaya bariiska iyo baastada ma ah cayil oo qurux badan, ma fahanta. meel qaldan uu xitaa galaya. anyways marka pointiga waxaa waaye jirkaaga haddaa rabtid inuu dhisnaado, cuntooyinka kaa caawinaya inuu jirkaaga dhisnaado cun sida hilibka, sida brotiinka oo dhan. brotiinka maxaa laga helaa? cuntooyinka laga helaa brotiinka. hilibka number 1 waaye. haddii aad awoodid aniga waxaan ku dhihi lahaa hilib ku dadaal inaad cuntid. subaxdaa ku qaraacan kartid hilib, habeenkii ku casheyn kartid hilib, yaa qadada u basan kartid hilib. horta number 1 hilib waaye, ma fahanteen. hadda study la soo sameeyay waxaa la soo ogaaday dadka qaarkood waa wax cusub oo hadda oo maakano social media dhinac ka qabsaday kuwa dadka Mareykanka jooga kule waa la socdaan. waxaa jira dad dhan oo soo baxayo hadda dhahayo waxaan cunaa hilib bas, dietkan dhan hilib waaye, ma fahanteen. dhakhtaradan group soo dhigi doonaa insha Allah oo aan aniga la socdo dhakhtaradaasayto. dhakhtarad maskaxda baratay waa maskaxda ku takhasustay. research iyada iyo teamkeeda sameeyeen waxay dhaheen dad badan oo xanuunsanayo hilib ku daaweynayba taagan yihiin, ma fahanteen. intaasoo sanana dadka maxaa la dhihi jiray hilib badan ha cunina, hilibka daa cuntiin waa xanuunsanaysiin, ma fahanteen. siraa ka dambeysta dadka markino la dhahayo hilibka ha cunina, kambaniyaasha dhahayaan waxay soo saareen
cunto qashay soo saareen cunto waxay soo saareen jirkeena markuu cuno bararaayo dadkii hore iyo dadkaana la is ag dhigay dadka hadda joogo waxay cunayaan wax diyaarsan kambaniyaasha inaa soo saaraya kambaniyaasha marka sponsor ku sameynayo dhakhaatiir lacag siinayaan waxay leeyihiin haye warqado soo qor TV-ga tag waxaa dhahdaa hilibka lagu xanuunsadaa ma fahanteen marka dadkaas waa dad lasoo shaqaaleeyay oo hilibka dadka nacsiinaya dadkase wixii kale oo suuqa yaal u gataan hadda waxay soo saareen waxay dhahayaan wax hilib u egaan soo saarnay gado fiiriya wax hilib u egay soo saareen oo balaayo laisku soo shiiday ay ku dhahayaan dadka oo hilibka cunna cuno hilibkii ay la diida in la cuno waxaa la cunayaa wax kaloo laisugu soo walaaqay ma fahanteen marka dhakhtaradaanito waxay leedahay dadka hilibka cuno way ka caafimaad yihiin dadka kale murqa xanuun lafa xanuun maqaarka ku kala xanuuno maqaarka oo markino oo kala nooc kala noqdo wajigaaga dhaqsado duumo lafaha ku xanuuno jilbaha ku xanuuno tinta ka daadato cidiyaha ku bixin jirkeena ku leedahay intaas boqolkiiba maxaa la dhahay 70 camal ama 90 camal wuxuu ka samaysan yahay borotiin ma fahantiin inta kale waa biyo dhiig marka haduu borotiin iyo baruur ka samaysan yahay oona lagu yiri hilibkii borotiinka laga helayo iyo baruurta laga helayo ha cunin oo lagu dhahay aan salaato qof cunay waxa ka muuqanaya doqnima ka muuqanaysa dhaqso uu asaga dhan si kale u ekaanaya caato waa noqonaysa laakiin caafimaad kama muuqanayo ma fahanteen dadkeena hore isku fiiri markay heesayaan gabdhihii hore markay heesayaan iyo yani guntiinooyin ay wateen dadkii hore kaamirooyinka hore old movies iyo old songs marka YouTube-ka ka fiirisid garbahooda muruqay leeyihiin wajigooda waa kuusan yahay wajigooda gabdhaha daama qurux badan ayna leeyihiin waan dad dhisan ma fahanteen dad baruur oo calool ka soo raaracda maaha dadka hore ma cuni jirin cuntooyinkan diyaarsan hilibkan waa u badnaan jir diet-kooda ma fahanteen marka ani maxaa sameeyay marka dhakhtardan saa horta YouTube-ka maxaa la dhahay Facebook aan ugu bartay aan u daba kacay aan follow u dhahay waxaan baaray maxaa la dhahay maxaa jirka dhiso maxaa run miya protein-ka ma fiican yahay meeqa hilibaa maalinta ay iga baahan inaan cuno yani Soomaali hilibkiisa qaali waaye laakiin heli kartid hilib u bad diet-gaada ma fahanteen bariiska la iskama dhaafi karo Soomaaliya baastada la iskama dhaafi karo Soomaaliya marka maxaa sameeynaa marka qadada soo ridatid camal ha ahaato 2 qaado 3 qaado bariis ha ku ahaado bas inta hal saxan oo bariis ah cuni lahayd hadii kale bariiskaas u ekaanaysa jirkaadana nafaqo la qaylinayo wuxuu leeyahay nafaqo si baruur si waxa isiisa protein si hilib si maraq si fitamiinada si kulay jirkaagii hadana waxa u egtahay qof buuran oo dhaqaaleysan u egtahay maxaa ku buuri bariiskiya na buurinayo soo wixii soo gacdo hooyo tahay xal dhan lagu nuugayo hada 4 xab canjeer saxan ku ridatid saliid iyo subag ku darsatid cuntid sokor shaah ku darsatid cabtid fiiriya fitamiino badan ka maqan borotiin badan ka maqan jirkaaga u baahan yahay ilmihii borotiin iyo calcium iyo vitamin D u baahan yahay canjeeradaasna hadii qamadi ka karisay oo nasiib aan leedahay oo qamadi ay ku ahayd way ku fiican tahay borotiin yar ku jiro qamadiga iyo burka madow iyo burka brownka ma fahanteen qamadiga iyo bariiska brownka iyo digirta iyo waxaas hada shiidan kartiin canjeero ka karsan kartiin ayaa kaaga qiimo badan waxa ka helaysa fitamiino waxa ka helaysa borotiino laakiin canjeerada cadeeda Soomaali inaad karsatid burka cadaay oo wax kasto nafaqo laga soo bixiyay waxa way processed food wax kasto waa laga soo qaaday maqaarkii waa laga soo qaaday waa burcad waa sidii adigoo markano oo shamiindada guryaha la mariyo camal cunaayo shamiindada sun waay laakiin waa sidaas camal yani wax ku jiro malahan ma fahanteen marka taas subax 4 xabo canjeerada burcad laga sameeyay cuntid waad si buuranaysa haddana daalkaaga uu badan yahay waa hirahiraysa dhulku kulmadoobaanaya daalkaaga uu badan yahay maxaa kale badan xanaaqaaga badan okay adiga dhan irritation adiga dhan qof haduu ku taabto isla markii xanaaqaysa qoftu waxay ku isla markii xanaaq badan xitaa waxa keenayo nafaqada jirkaada ku yartahay hadda subax canjeero cuntid 4 xabo canjeero isliid cuntid ama waxa isma marsatid rooti xumaay la ismarinay wax macmacaan marsatid iska cuntid oo shaahaada ka daba gees caloosh dharag dareento laakiin jirki iyo maskaxda iyo lafihi iyo muruqihii ay ku dhahayaan borotiinka aaway borotiin u baahanahay una kasto jirkaada ku jiro borotiin u baahan yahay fitamiin u baahan yahay wixii ku weydiinayaan jirkaaga dhan aad gudahana ka gubanaysid
korkana aad ka buuran tahay marka waxaa tahay qofan caafimaad lahayn ma fahanteen marka haddii gabadha subax soo kacda ka waran haddii ay heli karto hilib yar iyo hal xabo canjeero ay cunto haddii ay hilib heli gelin haddii ka waran gabadhaas ay digsi buuxo oo misir ah ay karsato misir ama digir inay yaanyo ku shiilato ay hal xabo canjeero ah inay saas u qaado saxan saarto ee dhexda kaga shubto digirtii iyo qudaartii ee karstay ku duubato ee koob shaah oo sokorta lagu yareeyay ee ku cabto gabadhaas jirkeeda protein iyo vitamins iyo adduuna ku jiro ma fahanteen cunugeena siinaysaa cunug wuxuu ka helayaa hooyadii protein iyo vitamins iyo wuxuu u baahnaa dhan uu ka helayaa iyo hooyada canjeero bas cuntay ismaris bas cuntay ma fahanteen qadadiyaa la gaaray hooyada saxan buuxo bariis ah laba cad oo hilib iskaga dhex jiraan liin iyo basbaas inay ku cuntay iyo hooyadii saxanka inay soo qaadatay digir yar gees ka saaratay qudaar yar gees ka saaratay hilib yar hadday heli kartay gees ka saaratay bariiskii gacantaada buuxda camal gees ka saaratay qab inay isku siiso galaas biyo cabtay ayaa ka nafaqo badan jirkeedana ka dhisnaanaya hooyada saxankoo buuxo oo bariis ah laba cad oo yaryariisoo hilib iskaga dhex yaalaan cuntay taas way iska buuran tahay laakiin indhaheeda marka la fiiriyo ma aragtay waxaa ka muuqdo daal waxaa ka muuqanaya maxaa la dhahaye qof wax ka dhiman yihiin ma aragtay qof oo xanuunsan ay u eg tahay indhaha daal iyo goysoo jiidmaya iyo kadha maxaa yeelay jirkii qaylinaya ma fahanteen jirka wuxuu leeyahay fitamiinkii borotiin because saaka canjeeray cuntay oo vitamin iyo waxba lahayn iyo vitamins iyo protein lahayn duurkii saxan bariisay cuntay ama saxan baastay cuntay iyo laba xabo yari cade ma fahanteen laakiin hooyada kale oo saxanka dhammaystiran cuntay oo geesba wax ugu saarnaayeen qudaartii vitamin ay ka heshay haddii ay heli karto oo oranjeeray gees ka saaratay digiray gees ka saaratay haddii xitaa hilibkaadan awoodin markaa bariis karanaysid digir haddaa ku dhex karisid ka waran ma fahanteen aniga marka maxaa sameeyaa gurigeena hal maalina laga cunaa bariis weege okay hal maalina bariis guriga laga cunaa odagayga ma jecla bariis iyo baasta is daba socoto wuxuu ku leeyahay waxa maxaan ka helaya aniga ma fahantay ilmeyga hadaan kari bariis ma jeclo baastada ilmaha saas uma jeclo ma fahanteen haddii aan ilmaha baastada u karina waa inay makarooni ahaataa oo jiis aan ku daraa oo hilibka shiidnaay aan ku shiila oo qurux ka dhigaa oon ovenka hoos geliyaa oon jiis kor ka saara oo iyadoo dhidhiimayso iska daba jiji sidii dadka mareykanka jooga camal baastadooda u eg tahay haddii la hordhigo wax yaray cunaaya ma fahanteen marka bariiska maxaan sameeyaa ani digiraan ku kariyaa digirta soomaaliya oo yaryareed oo gaduudneed inta iyadoo madoobaa taalo iyadoo gaduudan kuma arkin iyadoo madoobaa taalo marka digirta marka hore karsadaa markay digirteeda soo ka kar rabto oo wax yar ka dhiman tahay ayaa maxaa la dhahaye aan dalaca yaanyada iyo basashi iyo wixii dhan hilibkii gooni kugu kar wixii dhan hal mar isku geeya badanaa waxaan isticmaalaa waxaan la dhaho pressure cooker iyo rice cooker ma fahanteen gurigan kaama uraayo cuntada dhanna digsiga kugu daboolanta oo kugu karaysaa marka bariiska naga saas ma cunno haddaan cunayna bariiskeena digiraan lagu kariyaa iyo hilib baastada dheerta bishii waxaa laga yaabaa hal mar inaan kariyo ma fahanteen marka maxaan kariyaa marka ani maxaa cunaa ilmahayga waa ilmo ma fahanteen subaxdii lasoo kaco lama dhihi karo brotiin cun iyo waxaas kaama yeelayaan marka subaxii hadday rabaan ayaga in wax laysku mariyo waxaan u marinaya rootiga maxaa la dhahay loos la shiiday inta peanut butter ee ka dhahaan loos la shiiday hal xab u marinaya hal xabana jeeligiya u marinaya fruitka la shiiday waa isku qabanaya dhexdan ka jaraya ma fahanteen qofba jaban siinaya laba xabo saddexdoo xabo ukuna shiilaya qof walba ukun yar aan geeska ugu saara soo borotiinkiisana ku helo wixii sokorta lahaa iyo rootigiin uu dhinac ka cuno koob yar haafkiisa caana ilmaha ku filan marka ani marka cuntada gabdhaha groupka waxaan ku dhahay cuntada ilmaha ma cuno aan siiyo sababta aan u dhahayna ma aha qof special digsi saaranayo oo intaasoo hilib kaligeed meel la fadhiisanayso oo ilmaha qaadanaysa ma aha micnaheeda waxaa waa ismariskaas ani ma cunaayo ma fahanteen ismaris haddaan u mariyo ani ma cunaayo cereal hadday cunaan aniga ma cunaayo ma laba haddaan u kariyo waxaa laga yaabaa haaf iyo ama hal xab inaan ka cuno ma fahanteen haddaa mala wax isku iloodid canjeero ma jecla ilmahayga canjeero ma dubo haddaa canjeero isku iloodid mala wax isku iloodid bariiska isku iloodid baastada isku iloodid
run ahaantii ayagaad u ekaanaysaa abaay macaanto adigoo buuran nafaqo badan kaa maqnaanaysaa ilmaha caloosha kuwa didna wax kastoo nafaqay kaa dhuuqayaan wax kusoo hari ma lahan marka number 1 waxaa waaye dietka inaa bedelno okay dietkaaga dhan inaa bedeshid waaye ilmahaada xitaa waa inaa bartid si digirta loo cuno hilibka loo cuno malaayga loo cuno ilmaha qaarkood markaa malaay aa u karisa ama kalluun aa laga dhahaa dadka gabdhaha saaxiibada hargeysa joogo kuley luuqadeeda way la yaabi doonaan malaay maxaa la dhahaa dhihi doonaan marka kalluunka haddaa ilmahaada sii bartid ilmaha markay yaryihiin hadda ay noo yaryihiin waa inaan barnaa maxaa la dhahay healthy lifestyle camal ma fahanteen lifestyleka nooc loo noolaanayo caafimaad badan leh ilmaha dhow markay weynaadaan ayagana canjeero cunayo subaxii bariis ku qadaynayo cashadii baasta ku casheynayo ma rabno ilmuhu waxaan rabnaa ayagana markay weynaadaan sideena camal saxankay wataan ka fikirayo dhahayo okay saxanka maxaa iigu jiro protein ma ii saaran yahay vitamins ma ii saaran yahay baruur ma iigu jirtaa because maskaxda ilmaha baruuray u baahan tahay ma fahanteen that's why ilmaha ay u cayileynin because waxaa ku socdo koritaan fasta ku socdo anaga koritaan naguma socdo kaliya waxaan ka koreynaa baruur basaana koreyso lafaheeni iyo wixii dhan way istaageen wax koraya malahan ma fahanteen marka subaxii ani maxaa cunaa hoodanii ahaan sawirkayga waad aragteen intan waa soo gelinaya aniga subaxii markaan soo kaco ilmihii waxaan u sameeyo mishaariyan kariyo horta boorasha laga dhahaa waqooyiga bari maano boorashki maxaa waaye qamadi waxaa laga helaa mareykanka jajabsan oo lasoo jijibiyey bas oo la shiidin oo gazac ku jiro boorashkaasayto biyaan ku kariyaa subag yaraan ku daraa fiiriya subagayaa lagaa dhaadhicinin waa kuu daran yahay waxaas okay maskaxdaada subagay ka samaysan tahay wejigaaga subaga u baahan yahay maqaarkaaga ma fahanteen marka haddii exercise aad samaynaysid cuntooyin caafimaad leh cunays ma cayili doontid subag yar waxba kaama dhibaayo marka aniga waxaan ku kariyaa mishaari subag yar caana ku darsadaa baaquliyan ku shubtaa waan cabaa ilaa hadda naasan ilmaha siiya ma fahanteen ninka 3 sano jiro ilaa hadda woo nuugaa maxaa yeelay sometimes markuu hergab ku dhaco cuntooyinka inuu ka go'a marka saas darteed waxaan ugu dhigaa ha ku fakado ayaantu xanuunsan yahay waa inuu ku fakada naaska ma fahanteen marka haddaa hooyo naas siinays aad tahay waa inaa ma arkno boorashka la saaxiibtid boorashka waxaa lagu cayilaa markii aan sokor ka buuxsano ma fahanteen markii aan sokor ka buuxsano oo ma arkno wix dhan aan sokor ka soo dhigno aa lagu cayilaa laakiin boorashka haduu qamadi yahay laguma cayilaayo oo aad ma arkno caano bas ku darsatay ama yoogar yar aad ku darsatay marka subax waxaan ku quraacdaa boorash aan sokor lahayn iyo caano yar subax waxaan ku quraacdaa 2 xabo ukun iyo avocado haddii ku taalo maalintii avocadada iyo oolan 3 xabo ukun shiila kamana dhiga qallayl wax yaraan shiila maxaa la barar yaraan ku daraa subag yar wax yaraan shiila daasid shaahaygan ku cabaa fiiriya rooti waxaa jira madow mareykanka oo laga sameeyay qamadiga madow sometimes haduu noo yaala jab yaraan ku cunaa haduu noo yaalina ukunteeda kaligeeda cunaa haddii aad tahay hooyo uurle ama hooyo naaska ilmaha siinayso ogaa ukunta in ay ma arkino protein badan ka buuxo vitamino badan ka buuxaan tintaa naga daadanayso marka ilmaha naaska siinayni marka ama arkino oo stress badan nagu dhaco tintaa naga daadato marka haddii aad ukuntaada iskugu dadaashid maxaa la dhahay waxay ku siinaysaa protein badan oo kaa caawinaya tinta daadanayso ukuntaada iyo proteinkaaga hilibkaaga hadduu yaryahay waxaa ka fahmaysaa cidiyahaaga oo bixaynin maqaarkaaga ku qallalaayo oo ma arkino jajab iyo qawid iyo wax kuga galan maxaa la dhahay kala madoobaasho iyo kala cadaan wejiga tintoo kaa daadanayso jilbaha iyo lafaha ku xanuunaya xitaa ma fahanteen because hilibka waxaa ku jiro dhareer iyo balaqbalaq iyo waxaas dhan waa la cunaa because wuxuu u roon yahay wuxuu u fiican yahay lagu leeyahay jilbahaada meesha iska galaan iyo ma fahanteen marka hadda subaxna aan cuno maxaa la dhahaye marka mashaaridii boorashki subaxna aan cuno ukunteydii maxaa kala cunaa okay subaxna waxaan karsanaa ilmaha dhan ay la cunaan haddii ay noo taalo waxaa miraha la dhaho strawberryga Soomaaliya in laga helo waa laga yaabaa Soomaaliya waagii ugu dambeysay aniga waxyaalo badan laga helin hadda waxaa lagu leeyahay waxaan Soomaaliya yeelin ma lahan marka haddii aad strawberry haysatid waxaan sameeyaa 5 xabo 6 xabo ilmaha dhan hadda isticmaalayaan 10 xabo camal dhaqa oo strawberry waxaan ku shiidaa makiinada cuntada lagu shiido 1 xabo moosan ku dhex ridaa qaadaan soo qaataa waxaan ku daraa looskan la shiido oo peanut butter ay ku qoran tahay asagoo organic hadaa helaysiin way ka fiican tahay midkiisa aan organic ahayn marka
bina bararkii strawberrygii oo mooskii banaanihii caanan ku shubaa makiinadan ku shiidaa maasha allah wuxuu kasoo baxayaa smoothies waa protein shake okay protein shake oo waxaa jirto oo maarkano waxaan natural ahayn laga soo sameeyey oo maarkano synthetic ay dhahayaan synthetic waa wax daawooyinka camal qaarkoodna daawooyin waxaa jira geed ka soo baxay qaarkoodna waxaa jira daawooyin oo bani aadanka sameeyey ee man made ay dhahayaan ma fahanteen marka proteinkan dadka ay murqaha ku weyneystaan oo gazaacadaha ku jiro dadka exercise sameynaya oo murqaha ku weyneysanaya loogu talagalay ma fahanteen dadka caadigana way cabaan laakiin ma ahna lagu leeyahay hadaad si fiican u akhrisid wax ku caafimaad badan maxaa yeelay intaasoo chemical laisku dara waaye si ay u noqdaan proteinkaas ay ugu soo baxaan marka waxaan gabaran ka arkay oo jirkeeda wax natural ku dhisato marka waxay sameysaa waxay tiri proteinkan waxa bina bararka lowska waxaa ka buuxo protein sidiisaba moogtihiin qof kasta wuu ogyahay soomaaha marka waxaad qaadaysaa looskaagii moosaa ku shiidanaysiin haddaa strawberryga haysanin moosii caana ku shiidanaysiin subaxii hal galaasa qab ka siinaysaa ma fahanto oo galaasu fiican oo adi midka shaaha ahayn oo midka dhexdhexaadka dheerka cabitaanka lagu shubto haddaa kaas cuntid quraac kuuma dhinna ma fahanteen ilaa iyo 5 saac iyo 6 saac maalin baahi kuma qabanayso ilmahana sidoo kale ilmaha qaarkood cuntooyinka ma jecel subaxii hadda alaabahaas u shiidatid ma aragtay protein shake isku noqonayaan waa protein buuxo because caanihi protein looskii protein iyo qudaartii maxaa la qudaar ma ahna mirihii mooskii iyo strawberrygi iyo vitamins ka buuxaan haddaa isku shiidatid haddaa sokorta ka maarmin wax yar ku biibisid annaga hadda sokor ma ku darsano maxaa yeelay mooskiyaa macaan strawberrygiyaa macaan ilmahaygana waxay la qabsadeen caanaha aanan lahayn sokorta weligood caana sokor looguma darin marka afkooda markay dhadhamiyaan maxaa la dhahay waaba u macaan yahay ma fahanteen laakiin ilmaha yaryar haddaa sokor bartid waxay ku dhahayaan moor sokor iiga dar hooyo wixii hore kuma filnaanayo hal qaada ugu daree markay 1 sano jiraan markay 2 sano jiraan waxay ku leeyihiin sokortan ugu yartahay dal 2 qaada waa ina ku walaaqdid sanad walba sii weynaanayaan sokortay kasii buuxsanayaan marka ilmahaadana lifestyle maxaa la dhahay caafimaad darro ah u horseedaysaa ma fahanteen marka waa inaan u horseednaa dhinaca caafimaadka ilmaha naftirkooda say noogu bartaan marka quraacdi waa meeshaas ma ogtahay mar waxaa cunaa shurbad mar waxaa cunaa ukun kaligeed iyo shaahayga marna waxaa cunaa shaygii protein shaygii oo laisku qasay hadda aan kaga sheekeeyey qadadii kuu soo hartay maalin waxaa isku karinaya bariis iyo digir iyo hilib laisku shiilay oo digsi oo pressure cooker la dhahay lagu kariyey slow qaarkood loo kariyey maalin waxaa cunaya maxaa la dhahaye ansalaato iyo ansalaatada saas uma jecel aniga waxaa waaye marka ansalaatada dad waxaa jira ansalaatada calooshooda la heshiinaynin ansalaatadayda ma ah mid iska cagaaran waxaa isku jira yaanyo afakaadho basal iyo waxaas isku jarjartaa ma fahanteen digirtan la dhahay chickpeas hadda ka horna aan soo geliyay pageka iyo groupka mar walba biyo noogu kartano falinjeerka noogu jirto marka digirtaasaan soo qaadaa qudaartii aan jarjaray ee afakaadhada iyo yaanyada iyo basasha iyo liin aan ku miiray kabsar caleen yar aan ku daray ayaan digirtii aan wax yar soo qaadan soo miiray biyaha kasoo miiray ayaan qudaartii ku dhex walaaqaa meeshii maxaa kaaga soo baxaya marka ansalaato protein leh ma fahanteen ansalaato protein leh fitamiinadan waa ka dhargeysaa digirtan waxay ku siinaysaa maxaa la dhahay protein ansalaatadaas marka geesaa dhigane ma fahanteen kaligeed qadab ma cunaysid waa ansalaato ma ogtahay laakiin protein ku buuxo way ku dharjinaysaa because dhaqsini caloosha dharagto waa caloosha waxay dhaqso dhargeyna markii aad hal shay cunaysid sida bariiska camal bariiska marka 2 qaad kuma filnaanayo marka bariis bas saxanka ku wadatid moqt waa inaad soo buuxsataa 10 qaad ku soo shubataa meeshaas waa meesha lagu bararayo marka laakiin saxankaada hadii oo kala badan kala duwan cuntooyin kala duwan ay ku saaran tahay dhaqsa dhargeysa marba kan afka gasho markan afka gasho dhaqsa dhargeysa ma fahanteen marka maalinna waxaa cunaa maxaa la dhahay bariis iyo digir iyo ansalaato maalinna waxaa cunaysaa maxaa la dhahay ansalaatadaadii oo digir loo dhex daadiyay iyo cad yar oo hilib hadaa heli karo cad yar oo maakno kalluun hadaa heli karo iyo biyahayga annaga biyaha macaan oo Soomaaliya waa la yaqaan cabitaan la dhahaa ma soo gadano annaga cabitaan ilmahayga ma la barinba weligood ma fahanteen juice la dhahaa meeshaanito juice ma soo gadano biyaha cadka la cabaa gurigeena ama caanaha la cabaa ma fahanteen marka qadada anaga biyan ku cabnaa habeenkina cashada half oo maakno oo caano ku cabaan subaxina half caano ku cabaan oo galaasyada ilmaha halfkooda camal caano marka
ansalaatada digirta ku jirtay iyo hilib yar, ansalaatada digirta ku jirtay iyo kalluun yar, ansalaatada digirta ku jirtay iyo doorada saas ma jecel aniga badanaa hilibkan jeclahay ma fahanteen. gabadhan oo idin sheegay dhakhtarada oo maskaxda ku takhasustay waxay cuntaa 3 jeer maalintii subaxii qadadii cashadii hilib bas 50 sano hadda hal sano may ugu dhiman tahay adiga waxa u maleynayaa 48 sano inay jirto hooyadaas haddii ay aragtidna waxaad dhehaysaa 28 maybe 30 years ay jirtaa aad isdhehaysaa wax caawin maxaa waaye hilib ay cabtaa waxay cuntaa maxaa la dhahay ukuntay cuntaa cheese-kay cuntaa xayawaan ka soo baxo caanahana way cabtaa ma fahanteen dadkeeni hore camal ay u dhuuban tahay iyada dhan markana qoorteeda way dheer tahay wajigeedu wuu maxaa la dhahay kaaliska arag nafaqo iyo waxaa ka muuqda caafimaad ayada oo baruur lahayn marka waan ka kaabigareeyaa waxay ay cunayso badanaa laakiin sideeda camal qado iyo quraac iyo casho markino ma cuni kartid hilib ma cuni kartid badanaa qaali waayaba ma fahanteen haddii ay haysatidna yacni qof cuntooyin kale kusoo korayo maxaa la dhahay ansalaato cuni jirayo basbaas dhadhamin jirayo shaah cabi jirayo way ku adag tahay hal mar inuu markino iska jaro wax dhan u dhaho hilib basaa cunaya waa la samayn karaa laakiin weli maba isku dayin aniga ma fahanteen hadda ka hor ramadaankii lasoo dhaafay hadda waxaan sameynay aniga odagayga waxaan dhahnay challenge aan sameynayna haye gabadha marka waa isla daawana aniga asaga ma fahanteen oo hilibka bas cunto wuxuu dhahay marka challenge ila galo igu dhahay 15 bariyo ugu horeyso soonka waxaan maraq iyo hilib aan ma cuneyno ma fahanteen maanta dhan waa soomanahay galabtina hilibkiina qaadno dhaqno iyo lafihi ayaa markano pressure cooker digsiga weynaa ku shubno basal iyo cusbo iyo markano aan ku darno iyo filfil ama kana maraqi cadaan cabeena hilib cadna waa cuneena marka challenge-ga ani asaga isla sameeyno qofka give up dhaqso iska dhaafay challenge-ga sayto marka 15 bariyo soon hadda la soo dhaafayay waxaan ku suxuuranay maxaa la dhahay waxaan ku suxuuranay ukun kaligeed iyo biyo iyo shaah iyo timir afurkeenina wuxuu ahaa timir maraqi cadaan kaligiis hilibki iyo lafihi oo dhuux laga dhuuqay والله بين إدين شيء aniga awalan ka dhuubnaa asaga weyga markano way kasto iga caylna asaga dadkii yaqaaneen markano xitaa waxay ku dhahaan say camal niyo labadan bir waa isbedeshay soonka waay u dhahay waligiisna soon saas uguma soo dhuuban jirin ma fahanteen laakiin si special oo dhuubta asaga dhanba caloosheena ka yara dhacday markano يعني عافبات بدنا كم مقدم ما فهمتين مركز شن يتوقع بري مركز أن لما يسنى وحوده أنيق وابسي وضنايا وابكهل ما فهمتين مركز سجى مرق يزيه اللي بكيسو صدم بري عناية أنا جنا محل لا سمبوس كي عن دبناي لكن مرق ولا عناية لكن سمبوس كان إنع دبناي ما فهمتين قف سمبوس كسكر يعني marka insha Allah waxaan rajeynayaa inaanan warka baadanin I have no idea ma qaminada idin la hadlooyo hadirtan marka qadadeedii baa idin kaga sheekeeyay micnaha waxa waaye protein inuu saxankaad u badnaado waaye bariiska ku yaraado baastada uu ku yaraado shaaha hadii aad jeceshahay 2 koob inaadan ka badsanin subaxina hal galabtina hal aadan ka badsanin hooyo hadii aad tahay gabar hooyo noqon doonto oo uur leh waxa aan ku waanaa inay yeelatiin special cup oo adiga ku go'an bas ma fahanteen cup adiga ku go'an oo cupkaas oo wax ku cabtid biyo bas aad ku cabtid because hooyooyin hadaan nahay waxa iloona inaan biyo cabno markaas markii oonkii uu naga bato aan confuse waxaan ku noqonnaa shaaha ahay ma fahanteen markuu shaah ku qabto jikada inaad gashid cupka adiga ku yaale oo meesha aad dhigatay biyo ka cab okay sirtaas aniga sameeyay markaan uurka leeyahay energy-gayga waa very low ma fahanteen maanta dhan shaaha ay qabanaa markaan uurka leeyahay markaas waxaan sameeyay sirtaan sameeyay waxay tahay kooban sameystay subaxii biyo badan oo ku shubay koob weyn oo garaafa camal ah jikada meel ka dhigtaa waxaan biyahaas maanta ina dhameeyo waa markaasaan jikada soo gal biyihii arkaya hadaan arkin ma xasuusanaay ma fahanteen markaan jikada soo galo shaah qabto biyahayga shubtaa waan ka dhex baxaa hadii aad jabliina ina gooysid iskaga dhex ridi kartaa si dhadhan kugu yeesho hadii aad biyaha necab tahay
marka biyaha haddaa ku dadaashid mar walbo isdhahdid adigoo hadda qadaysid sometimes adigoo hadda cashaysay adigoo hadda quraacatay markanoo gaajo been inay ku qabato adoo jikada dhex taagana is arkay oo filinjeerka furaayo marka biyahaada cab ee kasoo bax jikada waxaad isxasuusisaa inaa hadda cunto cuntay haddii kaleeto waxaa waaye waan inaga naga jaran tahay ma fahanteen waxaa arkaysaa gabar waxaa arkaysaa wiilka qabo iyo ayada wiilka qaba ka weyn ayadana way ka yartahay ninka qabo laakiin markay is ag taagan yihiin iyada waxaa loo malay inay ka weyn tahay ninka dhibaatada jirta maxay tahay mataqaanaa markaan uurka yeelano hilibkana koray markii aan naaska nuujinayna hilibkana koray aan isku iloonaa maalinta ilmo dhashid iyo maalinta uur leedahayba haddaa borotiinka ku dadaashid oo cuntooyinka cadcad bariiska cad baastada cad waxaas cad aa iska dhaaftid haddii aad jeceshahay inaad doolshi iyo waxaas ilmahaada u dubatidna ha isku iloobin aniga daas waay aan u jecleen inaa wax dudubo okay ilmaha waxaa u dubaa moos cupcake banana cupcake wax la dhaho mooskii oo la jijibinaayo ukun yar lagu daraayo bor yar lagu daraayo yoogar yar lagu daraayo markaasaytu way ka caafimaad badan tahay haddaan cake u dubo odayaygana cake soo ma gado anigana uma sameeyo maalmihii aan isku cusbeen oo isguursanay waxaan ku waashay inaan macmacaan u sameeyo ma fahanti markaasuu ninkii bararay anigana aan bararay waa isqabanay dhibaatadan waxaan ogaanay inay tahay macmacaanka isku hubsanay ma fahanteen haddii aad jeceshan ama macaan samaysid marmar ha kuu ahaado haddii aa ilmahaada inaad u samaysid aad rabtidna midka caafimaad kale u sameey sida ma agno yani cupcake mooska lagu dubaayo camal video baan kasoo sameynaya insha allah hal xaba ka cun adiga muhiimadda waxaa waaye inaad cuntooyinka cunaysa markasta qalbiga ku haysaa saake maxaa cunay borotiin ma cuna saakayto khudaar ma haysta maanta fitamiinkaaga ma qaadatay okay midda kale ugu muhiimsanaan raba inaa idiin soo macno qalin saas ugu xariiqo waxay tahay maalinta uurka leedahay ilaa maalintaa dhashid ilaa maalintaadan dhalaynin marba haddaa hal mar hooyo noqotid waxaa lagu leeyahay maalin kasta waa inaad fitamiinkaaga qaadatid ma fahanteen haddii aadan ahayn hooyada markino baaskad buuxo furuud iyo baaskad buuxo oo qudaar maalin kasta isku hubsanaysa haddaadan ahayn aniga camal mooska iyo tufaaxa waa ka cararaa mooska iyo tufaaxa waxaa ahay dadka ay ku cayilaan ma fahanteen dadka qaarkood mooska markay cunaa caloosha aariyooba ugu furaa markino calool yaraaba kasoo dhaceysa waxaa waaye mooska sokor badana ka buuxda mogtihiin marka aniga camal waxaan ku qasbana inaa fitamiinadeeda aan qaato fitamiinadan qaatan gabdhaha hadda kor waa ugu sheekay gruupka waa fitamiinadii maalinta uurka lahaa la iisoo qoray markino hooyada loogu talagalay ilmaha naaska marka la nuujinayo la qaato waa fitamiino dhammaystiran ma fahanteen kuwaas hal xabaa kugu filan maalintii ay qaadatid hana iska joojinin weliga maxaa yeele markaa uurka leedahay tintaa ku bixi doonto maalinta ilmaha dhashidna tintaa kaa daadan doonto marka maalintay tinta kaa daadanayso ka waran haddaa iska dhaafta fitamiinadaadii maalinta ka waran nafaqada dhan cunug oo kaa nuugayay iska dhaafta fitamiinadaadii ka waran muxuu kaa dhuuqaya adiga ilmaha waa isla gubanaysaan ma fahanteen yacni adinkoo bubuurno bariiskiinii baastadiina cad cunaayo welibana oo dadkii idiin maleeyaan dad caafimaad qaba haddana fitamiinada idinku yaraan karaan ma fahanteen fitamiinadu waa muhiim energyna siinayaan maqaarka iyo tinta iyo indhaha iyo meel walba naga caawinayaan ma fahanteen marka insha allah haddaa tahay gabar fitamiinka qaadanaynin waxaan kugu waaninayaa fitamiinada ay ku qoran tahay prenatal ay ku qoran hooyooyinka uurka leh ku sawiran sawirkooda fitamiinadaas inaa maalintii hal xaba qaadatid haddaa uur leedahay haddaa uur lahayn waa inaa isku wadid dhakhtarada ilmahayga waa dhakhtarad Mareykan oo cadaan ah 4 cunugii soo dhashay ee soo korsatay waxaan ku dhahay adiga timahaada mabu eko maakino oo qof ilmo dhalayo timaha ka daateen waxay igu tiri hodaniyo aniga waxay dhahday fitamiinadii maalintii uurka lahaay tiri 20 sano ka hor ilmo dhashay 20 sano ka hor waxay dhahday fitamiinadii aan qaadanay markaan uurka lahaa ilaa iyo maanta qaataay tiri okay waana hooyo oo maakino oo pediatrician oo ilmaha ku takhasustay caafimaadkooda waxayna qaadataa fitamiinadii maalintii uurka lahayd ma fahanteen marka kastoon sii weynaanayno sanadka ku xigo sii weynaanayno tinta way naga daadanaysaa maxaa yeelay ma aha kaliya ina uur leenahay yacni stresskeena sii badanayo yacni maxaa la dhahay waan sii weynaanaynayo da'deena sii weynaanayso marka timaha bini aadanka ninka iyo naagta ma kala duwana ma fahanteen kaliya waxaan ugu duwannahay 6 bilood ugu horeyso naaska siinayna timaha naga daataan naaskana ma aha waxa oo badana 100% la eedeynayo naaska eed yar uu ku leeyahay laakiin
qofku markuu dhalo ama naas ha siiyo ama yuu siina tinta way ka daadanaysaa. Laakiin hooyada naaska siinayso waxaa tinta ka daadinayo hormoonka oo naaska caanihiisa keenaya ka daadinayo, ma fahanteen? Marka insha Allah vitaminadiina oo gabadha uurka leh ku sawiran tahay maalinta ha iska iloobin, biyahaada ha iloobin. Muhiimada ugu dambeysa oo idinku waaninayo waxaa waaye exercise, okay? Caafimaad ku jiraa inaad idid, caafimaad ku jiraa, okay? waxaan rabaa inaad go-aan la yeelatiin, okay? Sawirkayga horta meesha inaad soo dhigo waa si marka ay aragtiin aad dhahdeen gabadha iyadoo ilmo dhashay, ma fahantino yaa ee dhexdeeda saas u yar tahay. Yacni ma aha ina ani idinkugu faanaa ina ii fahantiin. Waa adduunka ugu necbahay faanis, waxaa adduunka ugu necbahay istustus, okay? Inta Facebook igu taqaano way arkaan maanta dhan nolosheeda iyo meeshaan maraay iyo waxaan cunay sawirka ma soo qaado, ma fahanteen? Yacni istustus iyo dadka ka sheegaan ani ma jecli, okay? Muhiimadeeda iyo goolkayga waxa waaye inaan arko gabdhaheena oo horumar gaaray, okay? Adinkoo horumar gaaray maxaa la dhahay muhiimadeeda waxa waaye inuu qof kale horumar gaaro, okay? Qof kale markuu horumar gaaro somehow farxadan ka hela, qof kale oo horumar gaaray markaa ku farxa, okay? So waxaan jeclahay in adinka markii horumar gaartiin, waxaan jeclahay ilmihiin inaa u naxariisatiin oo si wanaagsan ilmihiina yacni si wanaagsan ila ilmihiin u kursatiin oo naxariis iyo jecel ay ku jirto. Markii aan markino Facebook page ka aan sameynayay kaliya waxaan rabay inaan idin la wadaago wanaaga hooyanimada, idin dhiirigeliyo waxyaalaha wanaagsan aan idin la share gareeyo. Muhiimadeeda halahaas bas ay ahayd. kadibna group aan sameysanay waxyaalaha xasaasiga iyo waan iska qusulsiinaa sometimes waxyaalan waa iskala share gareynaa. Gabadha su'aal qabtan meesha soo dhigataa, hooyada taqaanan way ka soo jawaabtaa insha Allah. marka anyways aan ku noqdo topic muhiimkiisa maanta waxa waaye sidee baan isku dhisi karnaa. Marka waan ka soo hadalnay cuntooyinkii, waxaa kale waxaan kugu darayaa exercise inaad sameysiin app fiican oo videoyaal badan ku jiraan oo programmo badan ka buuxaan oo adoo gurigaaga joogo aad ka daba sameyn kartid idin la soo share gareeyay groupka. Page-kana waan soo dhigay, qofkii aan page-ka aqooni ha soo galo Kasmaal barbaarinta ilmaheena ku qori. Facebook naga soo raadi. Instagram waan qabnaa laakiin markasta waa iska ilooba inaan wax dhigo maadaama Instagram aan saas u isticmaalin. waa muhiim dadka meel kastoo isticmaalaan in wax loola share gareeyo waaba iska iloobaaba. marka insha Allah app-kana waa idin tusaaya videogiisa magaciisana videogana soo saaraya insha Allah. App-kan waxaa iskale company weyn oo dharka gada Mareykanka lacag u ahaan jiray bishii lacag badan laga bixin jiray app-kan, ma fahanteen? Hadda markuu coronavirus ka imaaday ee free dadku ugu dhigeen si company-ga loo jeclaado oo dharkiisa iyo markino kabihiisa iyo qaaliga loo gato. Company-ga waxaa la dhahaa Nike iskale app-kan waxay ku soo shubaan, waxay hire gareeyeen shaqaaleeyeen dad oo markino professional oo dadka jimicsiyo oo dadka baruurta ka caawiyo sida markino jirkooda u dhisan lahaayeen. Videoyaal oo kaaliska arag ay isku shubaan, ma fahanteen? oo xitaa qaarkood lacag laga bixin jiray free ka dhigeen. Cuntooyinka cuni lahayd, exercise garan lahayd, meesha rabtid jirkaaga in ama akno ka shaqaysiisid, hadii ay tahay caloosha, hadii ay tahay lugaha, hadii ay tahay garbaha, video waad soo degsanaysaa, program dhan aad soo degsanaysaa. waxaad dhahaysaa programkan 1 week aan sameynaya, maalin walba exercise ku tusay wuxuu ku leeyahay kan maanta sameey, kan bari sameey. meel kale jirto oo blog cuntooyinka ka fiirnay, cuntooyinka la cuno, cuntooyinka lagu cayilo. marka insha Allah app-kana soo degsada ka faa'iideysta gabdho muhiim ma ah inaad gym aadid. aniga ilma guriga ii joogo online guriga wax ku bartaan, ma fahanteen? coronavirus ka wali noo socdo, wali guriga la joogaa, ani meel ma aadi kari, ilmaha ma wadi kari. marka ani ma jeceli dadka hortooda inaan exercise ku sameeyo somehow, ma fahanteen? marka gurigan ku sameeyaa app-kaas iyo YouTube-ka iyo iga caawiyeen. motivation waxa ii inaan markno mar walba aan dharka iga yaraaday ila ekaadaan, ma fahanteen? gabdho waxa idin sheegaya
ninka oo maalin kasta ilmaha u dhalnaa yacni 9 bilood kadib aan cunug dhalnaa ninka naguma jeclaanayo mentality waxaa jirto gabadha Soomaalida ka dhacsan tahay sanad walba hadaa ilmo u dhashin ninkaaga wuu ku jeclaanayaa kaama tagaayo gabdho muhiimada ninka markuu nagu guursanayo shalay ma ahayn ma uusan sawiraynin 9 bilood kadib inaa cunug dhalaysid kaliya wuxuu sawirayay gabadhan quruxda badan say ku helaa gabadhan quruxda badan say ku guursadaa say xaaskeyga u noqon kartaa wuxuu isku haystaa asaga markaas gabadha inay saa u ekaan doonto weligeed okay hello gabadhan saa mu ekaan doonto uurka koobaad ee qaadaba maskiinta way ku walici doontaa way ku xanuunsan doontaa cunugaada dhali doontaa adiga naftirkaada markaa shukaansanaysid gabadha oo hadalkaada macaan yahay waad isbedeli doontaa guriga markaa imaadid stresskaaga hooyada waxaa laga yaabaa inay hooyo xun tahay waxyaalo badana gabadha ku dhici doona ma fahantay ninka marka ma picture gareena gabadhaanayto way cayili doontaa iyo way isku dhexyaaci doontaa iyo wuxuu picture gareynayaa gabar qurux badan soo ku guursan lahay marka ku soo xirgeliyo oo isguursatiin adigina ama ikno ay isdhahdeen maasha Allah guriga yeelatay ninku jecel ku guursaday yaa isku roono biyaha qabowga baraf ku soo shub yaa gabar ay caloosha ku weynaanayso marka biyaha la qasaay iyo barafka lagu ridaay iyo bariis la soo guranaay iyo cuntadaada ka fiirso saxankaaga inuu kalar badan ahaado u fiirso cabitaanka badan iska yaree ice cream xagga iska dhig horta iskaba ilowba sanadkii hal mar carabka ku taabo haddii kaleeto ahaaw gabar maalin kasta 2 saac exercise sameynayso gabadha maalin kasta 2 saac exercise sameynayso oo iska shaqeynayso waxay rabtay cuni kartaa ice cream ay cuni kartaa haddii rabto maxaa yeelay baruurtaas bariyo gubi doontaa laakiin haddii aad tahay hooyo aniga camal biisigeeda iska ilmaheeda ka daba ordayso oo exercise yada ugu badatana 1 saac ka badsanaynin waa inay waxa cunaysid waxa taabanaysid waxa afka gelinaysid aad kala fiirsatid waa aniga taa saxan buuxo digir soo gurto oo misir aan karsado hilib oodka caanshiishan ku darsado waxaa ogahay muruqayna muruqa dhalayaan laakiin baruur ay isi koreen caloosh iga weynaanayna ogahay laakiin haddaan saxan baasta iyo maxaa la dhahay iyo ice cream aan soo gurto waxaan ogaa biri markaan soo kooco calooshana ku usnaanays garbaha inay jilcayaan barida iyo lugaha hoosena ay jilci doonaan waa inaa ku xisaabtantiin teeda kale gabadh waxaa idinka waaninayaa topican waa inaa topic kale video kale kasoo duubaa inaa ilmaha iska kala dheeraysiin ugu yaraan 2 sano waa inaa break qaadataa waa inaa cunugaa si fiican naaska u siisataa baruurta kaa dhuuqaya marka oo naaska siinayso ogaaya waxay caawiya aniga waxaa waaya ilmaha naaska u dhiga waa u sii daaya okay wax badan aan naaska siiya ilmaha ilaa iyaga iska baxaan waa ina maakno marka uur yeelatid gabdhaha Soomaaliya waxay ku leeyihiin iska xiraa saama yeela aniga ilaahay wuxuu yiri maakno xaq lagama xishoodo aniga waxaan horta sawirba aan ka xishoodo iyo video aan soo hor fadhiista dadka laakiin markaan wax qoraayo markaan hadlaay saas ma u xishooda ma fahanteen yani ma ina xishood laay ahay laakiin waxaan ogahay wixii xaq ka xishood ma lahan ma fahanteen ilaahay wuxuu yiri waxaan u soo qaadanayaa uu yiri Soomaali maxaa u dhahaa kaneecada waxaan u soo qaadanayaa yiri tusaale wax xaq ah laga xishoonayo ma lahan marka waxaan halkan idinkaga sheegaya qofkii raba ha dhageysto nin haduu raba ha dhageysto asaga naftirkiisa educational oo tahay ma fahanteen waxa idin sheegaya in ilmaha kala dheereysiin si jirkaada u soo kabto si jirkaaga nafaqooyinka iyo borotiinka ugu dhisatid u diyaar garoodo cunuga xigo oo ma akno adiga systemki ka baabi'in adiga dhaxdaada iyo ilaahay quruxda ku siiyaysan u dudumin ma fahanteen because number 1 ninka gabar qurxan basu raadinaya okay adoo 9 cunug leh oo gabar qurxan kala guursanaya waana ogtiin adinka dhan adoo 9 wiil u haayo hadii aad isku dhex yaacdid gabar kale indhaha u taagaya mana xumaan nimanka lagu xumeynayo caatin nimanka lagu caaynayo waa ilaahay dareen ku abuuray waxa way hormoonka eega ku jiro keena waa ka duwan yahay okay nimankaanay hormoonkooda ilaahay ba og taas darteedu ku yiri inta ku cadaabi lahaa oo aad zinaysan lahayd hadii hal kugu filneen 2 iska guurso 3 iska guurso 4 iska guurso okay ilaahayga abuuraya og inay iscelin karin marka laakiin ninka ma la eedeyn karo hadii adiga isdayacdid okay laakiin adiga hadii qurxan tahay jirkaaga ka shaqeysatid ya hadii oo bari ka maalin guursado aniga hadaan raali ka ahayn oo anigoo jirkeygu qurxan yahay habeen imaalin ninkeygu u faraxsan oo naag kale u raadiyo anigoo maakno oo u dheheenin imadanaysid
jirkaaga ma danaysid soo jiidasho ma lihid oo dhihi karin halahaas igu eedeyn karin xaqa un leh inaan dhaho okay adiga waa guursatay anigana waa guursanayaa ifur because qof aan jeclaan ani ma jeclaan kariyaa iga dhacsan bahodni eedan ahaan okay adiga waxa harta ka dhinacsanaadaano laakiin aniga hadii aan ninkeyga dayaco oo jirkeyga aan dayaco oo ma arkino ninkeyga baahidiisi aan ma arkino dabooli waayo xaq wuxuu leeyahay inuu guursado aniga ii taala markaas shalay aniga dayacay inaan iska aamusnaado iska joogo ama inaan ka tago laakiin aniga oo ma arkino u diyaar garowsan nolol wanaagsan nolol caafimaad leh 24 saac ilmihiis u xeydan 24 saac isfiirinayo oo ma arkino waxa cunayo wax kale sidii jirkeyga quruxda ugu dhumin hadii uu naag kala raadsado aniga xaq waxa leeyahay inaan dhaho nin kala raadsanaya marka gabar dhisan oo qurux badan ninkay rabtay helaysaa ma ogtihiin marka waa ina is dhistiin okay ilmaha waa la isku jeclaadaa yes laakiin jirka qurxan ayaa ninka ugu muhiimsan ilmo badan oo loo daadiyo okay ilmaheena xaqan ugu leeyihiin gabadha inaan number 1 ka dhigno emotional iyo ma arkno wax kasto iyo dareenkeena iyo jaceelkeena iyo waanadeena iyo hadalkeena degan iyo aan kuwaanino oo ku soo babaarino laakiin ilmaheena xaq waxay ugu leeyihiin in anaka jirkeena dhisno caafimaadkeena takar gareeno ay ugu leeyihiin xaq ah in anaka isdayacno ma ahan hadii anaga biri aan dhimano kansarna lagu soo sheego dhiigkar iyo cusbana lagu soo sheego iyo sokor ilmihiya ka tageena waqtigiin marka anaka isdaneynayno waa inaan ku fikirnaa aniga waxaan isku daneynayaa ilmahayga iyo nafteyda okay marka gabadhi marka laga tago kadib gym ay galaysaa exercise ay galaysaa gabar waxa arkaysaa marka la furo kadib nolosheedii oo dhan bedelayso okay guys nolosheedii oo dhan ay bedelay gym ay galaysaa gabadhi ma gabar kale waa shalay okay sister shalay maxaa ku diiday inaad is dhistay ninkaaga oo joogo asaga maxaa la dhahay ma istaahilmiya jirkaaga qurxoon ها عدو ما هدو أركو سوا كلا تكتيني هذا مرك عدو مو كل نقطة أو إسكت عينيس أو عدينيس وحتى هاي يا sometimes وحكو مشغولنا مرك لك كلا تجو قف كانيت إسكتيري ما فهمتين شال محا إسكتيري واي شال محا أتسوانين كيجا ما كنو وحا هاي إنا أني برور من الفريسنين إنا جيركي كشقي سنكرو قبله إن شاء الله إنها أنك لقانو أوكي هدي أتا هوي المنو جينيسو بروتينك ku dadaal exercise-kaada ku dadaal app-kan ku sheegay ku dadaal gabar Soomaaliya waxa jirta YouTube-ka dadka barto sida loo jimacsado gabadhaas hadaan ku English aadan fahmaynin gabadhaas daba dhigo fiidiyoyaasheeda fiirso ka daba samee gabar oo waxa waay oo jirkeed ka shaqeynaysa ma sha Allah laakiin badana waxa inta tusaay tusaale in ku tusaaya dadka qaarkood marka soo codku waa kala gooyo waa ku soo noqday waxay leeyihiin adduunka meesha ka joogaan ee ma arkino waxay u isticmaalayaan khiil lacala ka soo qaat Soomaaliyan jooga waxay ku dhahaan Soomaaliyan jooga gym ma haystay hello gabadh waxaan ku leeyahay saaxiibay walaalay aniga Mareykan jooga gym ma aado because ma bajecel ilmahayga inaan ka tago okay mana jecel dadka hortoodana oo ku exercise gareeyo oo ma akno marna lugta kor u taago marna gacanta kor u taago xitaa socod hadii ay tahay banaanka ugu filan okay marka adiga odagaaga markuu imaado oo ku nasto oo ku qadeeyo oo ma akno ilmihiis wax yar la ciyaaro adiga ka keensan karo inuu hal saac ilmaha ku haayo oo xaafadiina gurigiina hortiisa inaad jidka dheer oo lagu joodo lagu xadi karno waxba lagu sameyn karin maalin cad ay tahay habeen ma ahan saa u socotid kaba sports ina gashatid waa muhiim hooyada inay kaba sports gashato okay guys hadii kaba balaq maantana ku socod dhabar xanuuna kugu dhacaayo sandalka iska ilaaliya kabaha dheerna meelaha la iskugu imaado oo xalfadaha loo qaataa laakiin ha ka dhiganin ina kaba jambal ku noolaatid hooyada markay dhashay kadib jirkeeda wuu isbedelay waa ina kaba xiran gashantaa marka banaanka dhagaxyada iyo jidadka iyo bacaadka ku soconaysid marka insha Allah waxa gashan kartaa kaba xirana gashan kartaa ridina ka bixi kartaa waxa tagi kartaa meel hal mile ku jirto waa ku soo noqon kartaa hada xaafad buur deganta way ku fiicantaa buurta korey waa ka soo dagay waa koreysa waa ka soo dagaysa okay lugaha inay ku adkaadaan adiga dhan jirkaaga dhan ajimicsi sameeynayo dhidida ka imaanayo baruur isla ega ka dagayso okay hadii guriga aad joogto caloosha bas aad ka shaqeysid ma aragtay jirka dhinacyadiisa kale ma hela exercise ku filan marka exercise sameynaysid waa ina maalinba meel nooc ka shaqeysiisid cardio waa ina sameysid cardio waxa qalbigaaga ka keenayo neefta kugu adkaanayso oo yani aad dhididaysid okay waa muhiim ina qalbigaaga uu ma akno oo garaacmo socod darteed orod darteed qalbigaaga inuu qaraacmo muhiim waay marka waa inaad socotid hadii aad dabaq degan tahay odag ilmaha intuu ku haayo jaranjarada kor soo deg
kor soo deg adaa arki doono meeqa kiila kaa dhacdo okay meeqa poundna kaa dhacdo adaa arki doono adoo isbedelay adaa arki doono ku dadaal exercise-ka hadhihin adduunka meel hebelan ka jooga waxba ma qabsan karo waxay ku xiran tahay wax kasta maskaxdeena waaye adoo Soomaali jooga wax kasta qabsan kartaa aniga arrintan waxay ogaaday kadib markaan wadan shisheeye imaaday oo aan arka dadka si u nool yihiin oo waxay cunayaan waxay gadayaan dad wadamo kale ka soo cararayo intaasoo $1,000 inay qashin ku soo shubeen wadankan bas u soo aaday haday lacagtaas qaadi lahaayeen business ku bilaaban lahaayeen horumaray nolosha gaari lahaayeen inta imaadaan dhul maxaaqi laheen ma fahantay yani adduunka meesha rabtid waxa harta laga qabsan karaa everything wax kastana waa mindset keen maskaxdeena waxaan gelino waay waxaan iska dhaadhicino waay waxaan isku sheegno waay waxaan isku qufulno waay insha Allah waxaan rajeenaa inaan idin dhiirigeliyay wax badan iska bedeli doontiin picture-diina isbedelkiina adoo wajigaaga soo dhigin group kale soo share garay gabdhaha baraarujin ku sameey yaa groupkan waxa ka sameeyay group dhaxaysa waxa ku soo dhigi kartaa post soo dhigee waxa dhigi kartaa hay gabdho waxaan rabaa bishaan inaan is dhisno labadan bil soo socoto saddexdan bil soo socoto sanadkan dhaxdiisa groupna isku xirnaan kartiin oo maalin kasta waxay sameeyeen kala sheekaysto sawiradiina cuntooyinka cuntiin qol yara ku xareen kartiin oo WhatsApp yani waxa sameeysan kartaa qabiil dhan oo ku daba socdo oo yani waxa sameynaysa kula sameynaysa isku dhiirigelisiin qabiil waxa laga wadaa yani ma qabiilkaaga qof waa qof wixii aad jeceshahay jecelo raba inuu asagan heer gaar insha Allah tribe dana sameyn kartiin oo isku xiran ma fahanteen xaafada degan tahay gabdhaha kala baraarujin kartaa waxa dhigi kartaa galab kasta markuu odagaad imaado isla soo soconno isla soo orodno isla exercise gareyno is dhiirigelino waxyaalo badan la qabsan karaa markii ay gabdhaha isku imaadaan waxyaalo badan heer badan ay gaari karaan markay gabdhaha isku imaadaan insha Allah hadii aniga aan ku dhiirigeliyay waa inaa qof kale dhiirigelisaa hadii sawirkayga marka Facebook ku aragtay aad dhahday hodniisaan si ku noqoto adigoo ilmo leh gabar kale waa inaa u baraarujisa aad dhahdaa waxaas aan cunno istakar gareeno ma fahanteen insha Allah maxal dhahaye adduunka ma u joogno ilmo dhalitaan bas okay waxaan u joognaa nafteenan inaan horumar gaarsiino sida ilmaheen u arkaan inaan horumar annagana aan gaari karno insha Allah khayra idin rajeynayaa warkii aan ku dheereynin waa dheeraado warkaan cunto nadiif cun exercise na sameey niyadana ku xiro go'aankii aad gaartay meel ku qoro gurigaada meel ka suro subax walba fiirso go'aankaas heerka ma gaari wali halkee baa maraaya maalul meel ka xariiq meesha mareysid saas ku xasuusisid ogaa naftaada adiga u maqan okay ilmahaadii odagaada ka sako naftaada adiga u maqan insha Allah caafimaad in rajeynaya markii la furo oo la kala tago la sanacayaal hurdada laga kicin markii la xanuunsado cudur iyo cusbana lagu soo sheegay hurdada laga kicin hadda laga kaco hurdada hadii aarti baruur ina meel iska saartid insha Allah meel waa iska saari kartaa waana kugu kalsoonahay insha Allah okay insha Allah codadkan hadii oo yihiin codad laga faa'iiday oo wax ka faa'iiday fadlan comment noogu reeb okay comment noogu reeb nala socodsi waxa wax laga hel inay yihiin si aan u soo badino hadalada noocaan hadalada baraarujinta hadalada kor u qaada insha Allah muhiim ma qofku inuu kaamiro soo horfadhiisto oo noloshiisa dhan la arko oo asaga comfortable ku ahayn ma fahanteen marka hadii codka sida sheekhayaasha maxaadreeq badan codkooda la dhageysan jiray mogtiin marka insha Allah codka hadii oo wax ka bedelay comment noogu reeb like no saar share noo dheh gabdha kale iyo groupyo kale oo gabdha bas ku jiraan noo dhig hadaa rabtid hadii aragtid meesha aragtid adduunku share garay adiga insha Allah okay subscribe saar janaalka insha Allah hooyooyinkii ilmaha ayaa kor lagu qaadaa insha Allah wanaaga idin rajeynaya caafimaad waligaan ha iloobina ila ilmaha ku dhahdin waa idin jecelahay habeen kasta ilmaha ina habsiisiin hadii aniga taqaaniin oo ila socotiin iyo janaalkayga muhiimadeeda waxa waaye ilmaha jecel lagu koriyaa okay marka insha Allah ilmaheena u sheegay inaan jecelnahay nafta meel noo soo jirto ilaaha og in anaga cawada dhimanayno in iyaga cawada dhimanayaan laakiin waa muhiim inay ogyihiin inaan jecelnahay in ay maarkino wax kasto yihiin aan ku qaadan doono adduunka oo aan jecelnahay aan garab istaagayno oo aan nahay garabkoodii okay ilmaha markay qalad in ka galaan insha Allah ha u qaadanina xumaan oo weligan ah xambaarsanaatiin ilmaha qalad way galayaan way ku celinayaan mar saddexaad ay galayaan ilaa uu weynaado qalad uu galayaa weynaada wanaagsan cafiska habta macda insha Allah idin rajeynaya okay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh